Assalaamu calaykum asxaabay soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Daada. Maanta waxaan ka hadlaynaa qiso dhex martay boqor iyo oday maskiin ahaa. Waxaa jiray boqor dal xukumi jiray. Maalin ayuu boqorkii go'aansaday inuu dalkiisa ku soo dalxiiso oo magaalooyin badan soo booqdo. Intuu safarkiisa ku guda jiray ayuu boqorkii booqday goobo kala duwan. Dadkii dhan ayaa ku soo xoomeen waxayna u soo baxeen inay boqorka arkaan. Si kastay dadkii isugu soo baxeen, boqorkii wuxuu arkay oday maskiin ah oo wax tixgelin ah siinaynin imaatinkiisa, howlihiisana iska wato. Boqorkii odaygii ayuu u tagay wuxuuna weydiiyey sababta uusan ugu soo biirin dadkan isugu soo baxeen inay boqorka la kulmaan. Odaygii maskiinka ahaa ayaa ku jawaabay, adiga hortaa waxaa jiray boqor kale oo mar sidaan camal booqasho halkan u yimid. Qof walbana dhankiisa ayuu u cararay suu u arko sida adigaba hadda laguugu soo cararay. Laakiin maalmo yar kadib ayuu boqorkii geeriyooday waxaana lagu aasay meel qasrigiisii u dhoweyd. Isla maalinkaas ayaa sidoo kale oday dawarsade ahaa geeriyooday waxaana lagu aasay meel u dhoweyd qabrigii boqorka. Waqti kadib ayaa daad xooggan magaaladii ku dhuftay, kaasoo sababay inay qubuurihii burburaan, meydadkiina bannaanka u soo baxaan. Natiijadiina waxay noqotay in lafihii odaygii dawarsadaha ahaa ku qasmaan kuwii boqorka. Waxaana ku wareernay saan u kala saari lahayn midkii boqorka ahaa iyo midkii dawarsadaha ahaa. Cid kala saarta iyo si loo kala saaro ayaana la waayay. Dhacdadaas markaan arkay kadib, hadda ima qusayso, sidoo kalena tixgelin weyn ma siiyo ciddii boqor ah iyo ciddii tuugsata ama dawarsata ah. Waxaana xaqiiq ah guryaheena dhabta ah inay isku mid yihiin oo ay ciid ka wada samaysan yihiin. Wassalaamu calaykum.